السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب مل كستوت شوكتان با طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا قوليستا قور والبا إيا قوب والبا وحلقة أفراد وفردق أفراد برنامج كيني أستانتا إيا عوان كي سؤوها النفحات الرمضانية ودقونك بشهر رمضان السونكا حلقة waxaan ku qaadaa dhigi doonaa oo aan su'aalo ka weydiin doonaa sheekhi wa habibi al-ghali sheekh Maxamuud sheekh Xasan Aadam Abu Talha waxaan uga hadli doonaa oo kaliya shuruutu wujubi siyaami ramadaanka cidda laga doonayo cidda ay ku waajibtay ayaan ku qaadaa dhigi doonaa sheekh al-Fadil soo dhawow mar kale iyo mar saddexaad hayyakum Allah ramadaanku waa ishiya kaabiga يوكو واجبي قفو كو واجبيسه محل قدون يا شيخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك في ذلك وحول بوحوا له الشروط. الإسلام كان شروط والصلاة ده شروط والصوم كان هذا صاحبك ويدينا يو هي شروط وحن شروط الله المال. شروط وحال إلى هذا أنت أن فعل كان للصميم وحكاه الرأي هدي أصقل له فعل كدنبين لا سمين دور وأنصحني هدي أسجل لواينا وسر أنصحني نعم شروط بوليه هي ولي بدور شروط بوليه شرط يكون حنيك الروا الإسلام قف كالسومية سون كيس وأنصحيه وإنه مسلمية إن كستؤونك قالك آخر مركوته أي علماء أي كدو دار أي أضوجها الله من لو يدينا يا صلاة iyo soonka iyo waajibaadka ma la weydiinaya hada khilaafka inagu ma galayno laakiin adduunyada intaanu joogno ma ka ansaxaysaa salaad ma ka ansaxaysaa maya baan leeyahay sharti waxa qofku inuu yahay inuu muslim yahay maxay yeelay muslimada waxa lagu soo galaa shahaadati an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah qofkan inta laga helin wa in salla wa in saama soonkiisu ma ansaxayo maxaa kale sheekhi oo kale oo laga doonaya bimacnaa waxaan fahanay qofka si uu soonka u soomo waa in uu muslim yahay maxaa kale oo iyadana laga doonaya muslim oo dhan soonka ma laga rabaa muslim oo dhan soonka ma ku waajibi afwan barakallahu fiik muslim oo dhan qof kasta oo muslima maya qofku waa inuu yahay qof qaangaar بمعنى قفكو بحلو قانقارة وسؤال في عالله الله يبدأ يدين لي بحلو قانقارة وحلو مرينا والدين بضنبا وحبا هايهين إني آدو أغادان وحلو قانقارة سي أي المهوضة رنهانتي مد أيضا ما بفهم سين كرنا والدين حتى أنا على غيابا إني نوع ذكاته زمن كاني لتشوغو انت بدن وحال استعمالها تاريخ الميلادي صح وحا شرعي إنه وقانقارك كأغانا وقمري أما وضيح صح waxa laga yaabaa ilmahaaga oo 5 bilood ka hor qaan gaaray ama 6 bilood ka hor qaan gaaray inaadan ogeyn inuu qaan gaaray misalada waa misalo aan ishaaradeeda bixinayno saxiix qaan gaarku waa wiilash saddex shay ku qaan gaaraan gabdhuhuna afar bay ku qaan gaaraan haye jeclaan inaan ogaano soo haye wiilashii gabdhaha waxa ka dhaxeeya qaan gaarkooda horta 15 sano inay gaaraan ha oo 18 sano ma 18 sano ma aha 18 sano فقهاء قاربة قبل بالمناسبة صح ما قالوا بس وحكي كلام فقهاء قاربة جرا واقف هي مذاهب تقريب كاملة صحيح سيدي 8 سنة إن لو قانقار لكن قانقار كما أها تكليف كما لكن جمهورته وين شن يتطبن لكن وتقانقار أو مسؤولية قادرة صحيح لكن واحد لو قانقار وشن يتطبن واقف ومشترك بين الذكر والنعم لو كسمين قضب كلابات وشهوة qofkan inuu jirkiisu shahwo uu ka yimaado oo shahwadan waa waxan laga dhasho weeye sax taan waa qodobka labaad weeye qodobka saddexaad xudun ragii gabdho way sameeyeen sax qodobka saddexaad xudunta hoosteeda bil munaasaba xundurna waa la dhaxla soo xudun ama xundurta hoosteeda tima adag oo khashina inay ka soo baxaan saddexda calaamada rag iyo dumar way ka sameeyeen هل قضبنا قبله خاصية هيو وموضوع عن دمر خاصية عادة لو يقال سيك استبها النقطة خوفك كو واجبة يصون كو إنه يهي قف كان قال أو إنه واقف مكتر علمه يرى أن كان قال مركز صون كو مواجب صون كو مواجبين لكن في هذا لكن سيد السلف كسرناتي
waxay ku barbaarin jireen ilmahooda ayagoo yaryar bay wax ku barbaarin jireen inay soomaan si ay caado iyo dhaqan fiican ay markaa ugu noqoto waxay dhihi jireen waanu soomin jirnay kubad baa waxaanu ku mashquulin jirnay waxyaalaha mataqaanaa ciyaalka ay ku ciyaaraan ayaanu ku mashquulin jirnay xataa waalidiinta waxaa la doonayaa inay ilmahooda intay ku barbaariyaan ilmuhu markuu 12 duhurnimo iyo 1 gaaro haska afaro wax dhibaato ma leh laakiin inuu isku dayo waa wax aad u wanaagsan marka walka gaarsiiyana waliba hadiya la siiyo dhiirigelin fiican ay marka u noqonaysaa labada waa fahmay sheekhi al-islaam iyo al-buluq oo waliba jazakallahu khayr si fiican oo kala dhigtay shardiga saddexaad al-aql waa manaatu taklif subhanallah aqligu allah alhamdulillah ilaahiga aqligana siiyay yaa mahad iskale waa manaatu takliif waa meesha laga eegayo qofkani in cibaado uu gudan karo in kale waa aqliga walidaalika baa nabigu sallallahu alayhi wasallam rufi'a al-qalam an thalath saddex qalinka waa laga dul qaaday waxba looma haysto khayran wala shar min Allah bayso ka koobaad waxa weeyaan waa midka soo saro waxa weeyaan waa asabi ka labaadna waa maxay waa inuu waa majnuunka وعكسك عاقلك قفكو هادوين مر مسكحديسو جوجين oo uu waalan yahay waalida de culimadu ay xadidaan oo qofka inuu waalan yahay waxa weeyaan manaatu takliif iyo aqliga asagana soo laga marrabo صح صدرات إن بدن الله سبحانه وتعالى قرآن كيسكوير أفلا تعقلون أيوة يا أولي الأبصار يا أولي الألباب عقله مركو شيء مهم مرك إلهي نوالا أو أن مسكح يجراد بلهين حبوا مدر صدق وعقل جنو تشوف لما مدر حد هان قف كان والا ولي جيبه والله تلو مجرد وتوس وجلي آخر مركو تبغى ومسألة كله لكن ما إن لو يدين دونه أبدا تهاي أو لو امتحان دونه ليش على حياته نعم شيخ بس يودي كراه نعم وحكم إذا مثلا قضبضة وحلو يقانو الإسلام البلوغ والعقل القدرة وحلو يقان صح شيخ لك إيه أقوله مسألة إنا تفضل القدرة أوده قفك مركز له وإنه صوك واجب كويه وإنه أوده صح أوده مركز قيمة أخذته مركز ورا الله بارو قيمة لنا أود شكا وقفك شرحان بس أوده إنه أوده قفك وإنه سأود أنت حلا ولا شرحان بس أوده ما قاعدون كرم أمي كرو ما قاعدون كرم أمي كرو وحنوسين هاي شرايزة أما ما أهنا يودع يدقلهم هيه قفك وحو قاري 19 سنة لو قاري 18 سنة شرحان بس أودي كرو يكون عفمان قبع لكن شركي اسمه أودي كرو ميت كان وابا لما تنشري لكن ما حكون عي حنون إيه عذر باكون عي مركب حنون كلا قادنا حنون إيو يدع صح لبدا سنة كلا قادنا ومركب لنا القد وإنه قفكو أن يكون قادرا على الصوم نعم وإنه الصوم كأوده شرحان وإنه أوده صح عافماد هانا وإنه أوده ومركب لبدا سنة كلا قادنا مر لبدا بهدنا كلا قادنا oo tii da'da xaq iska dhig tii jirada man hadana laba u kala qaadayna jiradan qofkan haysata ma jiro laga bogsadaba mise waa jiro aan laga bogsanin wala alla inay gadaal aan ka tafsiilinna waqtigeeda munaasibka waa suurtagal laakiin hadda waxaan isku soo saarayna qofkan waa inuu jir ahaan iyo caafimaad inuu awoodi karo da'ahaana qofku waa inuu awoodi karo gabadha wax nuujinaysa iyo middan xaamilada ah xaggee ka soo geli awood la'aanta ma xagga jirada mise xagga dacfiga waxay ka soo gelaysaa lafteeda fuqahadu way isku khilaafeenba mas'alada shucuufaymin wuxuu qabaa waa baabka jirada wey صح baabka jirada wey walidaalika bilmunaasaba khalad yaroo waxaa jira ah haweenaydu hadday ilmo nuujinayso ama ay uur leedahay way iska afuri kartaa yaa caan noqotay may ma afuri karto ilaa inay awoodi kari weyda mooyeen وأما المهد باب كذي تفسير كتام ودينا وقت مناسبة القدرة شروط كلا ولا قدوني قف قوتي ومجرى الإقامة نعم مثلا قف قوة إنه النجية وصل مسافر أهين صحيح حتى سوء أوده حتى سوء أوده إن كستأو هدو مسألة خيار وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم لكن هذا هو مسألة بنان نعم إنه أسقو مسافرة وأفريقيا مسألة وحاجة الشيخي الله كحفديه qofku markuu musaafir yahay una awoodo ma inuu sooma u khayr badan mase in uu afuro u khayr badan mas'alada shakhsiga ku xiranta waa koow qofna inuu awoodo u khayr badan waa alqaadir qofna inuu afuro ayaa u khayr badan meel oo lagu arursan yahay buu nabiga arkay
sala alla alay slam اللهم صل وسلم markaasuu yidhi maxaa dhacay hebel baa soomayo wuu sooxay baa la yidhi نفطها وكبر قاعد haa waana safarna waa lahaa كو kuwii kale oo afurnaana awrtii bay ka dhigeen rarkii dadkii bay cunto u sameeyeen kuwii masaakiinta ay soomanaana geeday wada seexdeen markaasuu maanta ajirka waxaa qaatay yaa qaatay kuwii afurnaa saa daraaddeed waa arrin horta waasica صحيح haddii ay awooddaadu ay ku gaadhsiinaysana inaad soontaa kuu fiican haddayna awooddaadu ku gaadhsiinayna كل مدن سنة أفرتها كوفي inaad afurtaa kuu fiican waa masalo furan wey sheekh hal qodob ku khatimi kara تفضل oo aad muhiim u ah تفضل dadka shuruudda soonka soomayn su-aasha ay weydiisay waxaa ka mid ah gabadha khaasatan dumarka alkhuluw min alxayd wanifaas نعم maanic waa inuusan jirin shay maanic la yidhahdo waa inuusan jirin وصونك وديدية oo soonka u diidaya waxaa ka mid a marka laba qodob iyo maanico waxaa ka mid a gabadhu inay caado shahrida صح caada shahriya إنسان iyo qodob kale oo نفاس ديقو ملاتكي oo dhiigumileedka waxaan u malaynayaa qodobada waa qodobo aad iyo aad muhiim u ah هل الربا شيخي دمان مسافرka waxaa la yiri wuu afuri karaa laakiin haddana wuu ka asix baa la yiri gabadha iyadoo caado qabta ama nifaaskii qabto haddii iyadoo tira aan baan xoog badnahay waan iska soomi ma ka asaxaya soonka la nabiga u diiday sallallahu alayhi wasallam hooyada Aisha waxay leedahay iyada oo xadiis saxiix ah iyo waxay ku leedahay fi ahdi nabiy sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan waanu afuri jirnay bal waxa la amri jiray inaanu afurno gabar mar weydiiso tiri maxaa la yiraahdaa maxay gabadha ay markay ay caadada qabto maxay sidoo u yeertanaysaa xaruuriyatun anti ku tahay baadu khawaarij baata saadaradeed adilla dhan baa ku soo aroortay haweenaydu markay ay caadada qabto ama umasha tahay inaan soonka aan lagu lahayn laakiin way soo qabaylaysaa bil munaasaba laakiin baabkeeda ugu tiri doona حياكم الله شيخي جزاكم الله خيرا آد يا آد بيح وأهيد حلقة آد معان وحانا فيليا إن إذين كلا عداتي شروط لقد دوني قفك صائم كأنه صوم لدوني إنتان حلقة من لمدان كل مدونه نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته